Waxaan arkaynaa gabar yar oo 3 jir oo la gudayo aad u weynaysa. Haweeney duqa ayaa si arxan darro ah ugu shis gabadheeda jacayl u qabto darteed. Weli saxaraha qalan ee ballaaran ayay ordaysaa. Soconaysa masaafo dheer iyadoo aanan ka baqin dhibaatada. Lugaheeda ayaa jeexjeexmaya. Markay gaajoto waxay calaaninaysaa caleemaha. Markay daasho waxay seexanaysaa dhulka. Ugu dambeyntii Wales waxay u dulqaadanaysaa dhibaatadii safarka. Waxayna tegaysaa gurigii ayadeed amiga. Si kasta saasayna Wales ku baxaysaa ku aadaysaa London. Wales waxay noqonaysaa jaariyad muddo 7 sano ah. 7 sano kadib dagaal ayaa ka qarxay Soomaaliya. Wales waxay ku shaqadeedu waxayna Wales halka waxay kula kulmaysaa qof xiiseynayada laakiin waxay ka dooranaysaa inay ka cararto xushmad iyo cabsi darteed. Wales waxay guriga ugu soo noqonaysaa oo arkaysaa Marlin iyo saaxiibkeed. Wales ma awoodo inay aqbasho tan. Wales uga sheekeynaysaa dhibaatada ay ka soo martay gudniinka. Warisyada ka shaqeynaysa maqaayadda ayaa kaarka shaqada siinaya fotograafar caan oo la dhaho Donaldson. Donaldson wuxuu ugu fiirinayaa qaabkeeda wuxuuna ugu yeedhayaa inay wada shaqeeyaan laakiin Wales ma oga ninka la hadlayo inuu yahay nin caan ah. Wayna ka sii wadanaysaa shaqadeedii waxayna iska ilaawaysaa kaarkii. Maalintii dambe Marlin iyo natiijo ka dhalatay gudniinkii. Dhakhtarku wuxuu sheegay inuu soo celin karo sidii hore laakiin uu ka khafiifin karo xanuunka. Dhakhtarku wuxuu ka walwalsan yahay inaanay Wales fahmayn wuxuu ku hadlayo. Marka Marlin ayaa dhinaceeda joogtay. Wales waxay sii watay qalliinkeeda. Donaldson waxay ka heshay ciwaankiisa kaarkiisa ganacsiga waxayna rabtay inay noolaato nafteeda. Donaldson Wales waa inay la noolaataa Neil inkastoo Neil uu run ahaan u jeclaa laakiin Wales mar walba waxay ka taxadaraysay way ka fogaanaysay isaga. Wax yar kadib waraaqihii sharcigeeda Wales ayaa la soo saarayaa. Ugu dambeynna waxay aadaysaa Paris iyadoo wax dhibaato haysan. Tani waa Wales oo ka soo baxsanaysa oo ka noqon lahayd deegaankeeda. Markay Wales hadasho wariyii way oyday waxaana odhanaysaa anoo dumar xitaa ma sawran karo. Hadda Wales waxay noqotay mid nolosheedii ku guuleysatay xida. Ugu dambeyn waxay ka baxsatay silsiladii waxaana noqotay wax cajiib ah oo saxaraha ka soo baxay. Laakiin Wales ma sii joogayso nolosha caanimada iyo maalka muddo dheer. Xanuunka gudniinka ee yaraanteeda ayaa si qoto dheer loo saameynaya. Xasuus lama ilaawaan oo carruurnimadeed ayaa siinaysa ujeedo qoto dheer. Ugu dambeynta maanta Wales waxay iska daynaysaa shaqadeedii waxayna noqonaysaa danjire khaas oo u shaqeeya qaramada midoobay. Wales waxay aasaasaysaa hay'ado ubaxa saxaraha waxayna dejinaysaa hay'ado samafalo kala duwan. Wales waxay si buuxda uga hawlgalaysaa dhaqdhaqaaqa ka dhanka ah gudniinka. Sidoo kalena waxay khudbad u jeedinaysaa adduunka oo dhan madasha xarunta qaramada midoobay. Wales waxay ku baaqaysaa in fiiro gaar ah loo yeesho dhibaatada gabdhaha waxayna lacag u ururinaysaa si loo dhiso iskuulo iyo isbitaallo ay leeyihiin dadkeeda.